بسم الله وكفى daawadayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaad inagala socotaan warbaahinta koonfurta galbeed ee Soomaaliya qaaradda Yurub stuudiyeeda wareega maantana waxaa marti inoogu ah abwaan cali atore oo isagu kamid ah abwaanada koonfurta Soomaaliya abwaanada waaweyn ee Soomaaliyeed isla markaana ah musician heesana abwaanku waa qoraa isla markaasna soo saaray buugaag dhaxalgal ah afka Soomaaliga ay ku qoran yihiin cali atore idinkaga sheekayn maayo waa qof si fiican muuqaalkiisa aad u taqaanaan haddaba wuxuu marti ku yahay warbaahinta koonfurta Soomaaliya maanta uu kamarada uu inoo hayo madaxa guud ee saxaafadda koonfurta Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Ibraahim Xasan Amaandore abwaan cali atore ku soo dhow warbaahinta koonfurta Soomaaliya waa mahadsantihiin idinka dhan iyo bahda koonfurta Soomaaliya warbaahinteeda Amaandore iyo Baydhabo News iyo shanta Soomaaliya news everything waa mahadsantihiin safar dheer ayaad inoogaga timaaday waxaad ka soo gashay dalka Ingiriiska boqortooyada UK isla markaasna waxaad marti ku tahay waddanka Switzerland oo stuudiyo koonfurta Soomaaliya ay ku lahayd ayaad maanta fadhidaa abwaane xaaladda Soomaaliya ayaa la doonayaa in wax laga wareysto maadaama aad tahay qabiir ku takhasusay dhanka siyaasadana in badan wax ka qoraya buugaag sideed u aragtaa doorashada 2016 dalka Soomaaliya la doonayo in madaxweyne loogu doorto horta doorashada laba nooc ayay tahay mid horta mid waad iska aragtaa oo mid waaba tan hadda waxay ila tahay dib in loo sii dhigay haddana oo la yiri October bay noqonaysaa kulleyba ma aha doorashadii ahayd in qof uu codkiisa intuu kaas garay oo qof dooranayo kulley ma aha tan arko hadda waa tiila lahaa in la soo xulaan yani odayaal dhaqameed iyo wax gobolada intii la aado laakiin kulleyba hadda dadkii ayaa isdhex socday oo waxaan arkayaa dad badan oo leh macnaheedu musharax baan ahay iyo waxa kale oo jira hadda eedeymo badan dadkii musharaxiinta ahaa ay soo gudbiyeen oo leh idaacadaha qaarkood waxa isticmaalaya dadkii awoodda sida dawladda qofkii rabo ay isticmaala ama dadka qaarkood in la dhihi karo shirar gaar ah meelaha qaar kuma qabsan karaysa shir ma qabsan kartid waxa lagu dhihi karaa haddii ay carqalad nabadgelyada gelinayso waxay carqalad nabadgelyada gelin karaysaa haddii magaalada dhexdeeda intii la yimaado ay dad hoomaan oo la qayliyo la booqay noqon karaysa laakiin haddaan hotel tago oo hotel intaan kireysta dad isugu yeero qofkii oo dadkii la hadlayo ay shir qaataan ka soo qaadin xisbi jiro for example xisbigaas haddii wada hadlayaan haddii la dhaho maya waa lidinka joojiyay carqalad baa nabadda gelinaysaa waxaan u malaynaa taas inay feerahay adinka aqoonyahanada koonfurta Soomaaliya tihiin koonfurta Soomaaliya ka soo jeedaan door intee leeg ayay koonfurta Soomaaliya ka qaadan kartaa doorashada 2016 Soomaaliya teeriya 1960kii waxaad ku eedeysaan dadka Soomaaliyeed qaasatan in laba qolo ay kursiga isku badbedelaysay Soomaalidana waxay tiraahdaa labadii sir hoose u heshiisay saaqa koray isku dagaasha haddaba labada qole ee idinku aad eedeyseen iyagii ayaa mar walbana isku badbedelaya inkastoo ay eedeeyaan isku qabsadaan kursiga adinka doorkiina muxuu yahay haddaad tihiin dadka koonfurta Soomaaliya mase laga yaaba in madaxweyne Soomaaliyeed aad noqotaan ma ku tala jirtaan maxaa idin qorshaysan horta waa aad baa u mahadsantahay aadan waa su'aal aad u fiican bay su'aasha warsatay hadda ma arkaysaa door weyn waan ku leenahay waana ku yeelan karnaa haddii ay dadka sida ay tahay intay u fikiraan ay u arkaan siyaasadda habka ay u socoto iyo habsocodkeeda macnaheed haddii habsocodkaas waxaan ka wadaa haddii dadkan ilaan ma jirto okay aan gadaal u noqdo Soomaalida waxay khalad ka fahmeen in qolana madaxweyne tahay qolana tahay ra'iisul wasaare qolana tahay ama wasiirka koowaad ee Soomaaliga ama qolana tahay baarlamaanka waxay fahmi waayeen horta haddii system xisbi uu jiro oo wadan uu xisbi ku dhaqmaayo in ruuxa xisbiga aqlabiyadda leh markaas baarlamaanka in ay leeyihiin gudoominta baarlamaanka iyaga leh ama waxa la afhayeenka waxay gudoon ku keenan ma garanayaan aniga dadkan gudoomiye baarlamaan waxbay u bixiyaan meel laga isticmaalo gudoomiye ma jiro siyaasadda marin habaabinteedii baa waxa ku arki karaysaa markaas marka lagu yiraahdo per se for example ma aragtay hadda westernka joogta wadamadan galbeedka
iyagii dimuqraadiyadda noo sheegayay ayaan isticmaalin waxay noo sheegay abwaan cali haddaan gadaal u noqonno ama hoos aan u soo noqonno annaga midana qusaysaa waxay tahay doorashada Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ilaa 1960kii dad ka soo jeeda ama adinka ayaa qaadan jiray dad Soomaaliyeed maanta waxay aaminsan yihiin inta badan ama qaarkood in gudoomiyaha baarlamaanka ay iska leeyihiin dadka koonfurta galbeed ka soo jeeda kaliya xibin ahaan sidoo kalena ra'iisul wasaarenimada Soomaaliya iyo madaxweynimada Soomaaliya ee laba qolo oo kale aanan rabin inaan sheego magacyadooda isku badbedelaan sidaas darteed gudoomiyaha baarlamaan ee Soomaaliyeed idinku shabeeyay sideed rabtaan in magacaasi aad isaga bedeshaan haddaan sii raacsadana adoo raalli ah hadda waxaa jira wararna soo gaaraya in dadka koonfurta galbeed siyaasiyiintooda matala dawladda federaalka ay laba u qaybsan yihiin labadubana ay macnihii laga yaabo in ay u tartamaan gudoomiye baarlamaan halkii la doonayay in madaxweynimo u tartamaan arrimahaasi maxaad ku xalinaysaa horta وحدي ماركيس قف وحدي هذا بوينتي تارجت قرينا قف سوجي ما بكين كتقول أنا قف وذاك كين كتسمع حل وحلو جهلي كرا إن ضد كان أي تصان إن ما شاسيت أي تهم ملو والسمية إيجانا أنا عدك إحتانية هوس أنا سو دقنا أدور حاليا قدوميها برلمان كصومالي هذا كهر إسقو مالين قرالك في صومالي كقيب جلا يسقي مدحوين حسن شيخ وحا وشاقي إن afka mayga uu yahay af iska lahjada waxa warkaas oranaya gudoomiyaha baarlamaanka haddaba gudoomiyaha baarlamaanku waa mas'uul u dhashay dawladda koonfurta Soomaaliya dawladana waxa wax lagu qaybsaday 4.5 ama 5 qabiil baa wax lagu qaybsaday waxba la isku dardarsaday sidaas darteed siyaasiga koonfurta ka soo jeeda 2004 shirkii Impagati wuxuu u dagaalamay u dhaawacmay شاتي جدود قلدي وهجامين يا مركزي الله نحرسته إن أفكار مايجا محاجة لبضو السميين وين هرجلي دستور كفدرالك وحكوا قرن ماي محاي إن سيسي من لوجها اللي كرو مسؤول كستوي ماذا الدولة الفدرالك أفيان با وجوين قفك عادي يكون متلاقي ماذا الدولة الفدرالك وما قد بيا أفكار مايجا هذا كورنا دكتور أماندوري ورئيس ودي بيوحوا يري وإن لقي برلمان كصوماليا سماع عضب يقرب ترجمة أفكار مايجا أفكار محاجة سي xildhibaanada isu fahmaan sidaas darteed hadii aqoonyahankii dibadda joogay oo macnaheedu xilna uu san qaban aragtidaasi iyo gudoonkaasi uu yeeshay miskaxdaasi iyo wadaninimadaasi ninkii adiga ku matalayay ama dadkii adiga ku matalayay maxaa u diiday afka Soomaaliga maadaama dastuurkana uu fasaxayo horta aan ku sheegay waxaan ku sheegi doonaa markasto oo meel ruux la geeyo روح حدناها كلا وضع أيال جاي لما جايو معنيه لما جايو قفكي أو معنيه أديك دنتاس قوة دي لها قف معنيه عميلة لسوقها أنا تسألي أنا كسينا هذا أنا وحام ربا أنا كويرا هذا أف محاجة أشياء يصير إنه جينو أف مايجا كوين يا هاي مكتوسي كرا سببتو هذا وقوي قتكتو أنا هذا نروح رجال إلا أنا في حاجة في هذا قال معنى كلو يقانا قف ميلاد كبحي هذا أنا ما مجينين أمر روح كيمة دقيقة من الفلام كيمة معني كوفر قلب مو تجين وما جينين يا حرقالي هروب قال دبا قال لي وحنا كلام كاتر هذا ما قال جعل قيل جعل اللي هو يا ما دبا قيل اللي هو يوقف كاس السجا أفكيسي أيوة أيا دبا أنا روحان أرك إنك أي شيء يستدعو برلمان كجوجو كينيا لقى ورئيسنا أيو قبل ورئيسنا يسي أيا أفماي كل أحد لي سو أسق أفكان كل أحد يعني سو وقتها qofkii waaye iyo sida uu yahay iyo tarjumada meesha ka iman karaysa meesha waaye laakiin kulleeba hadii qofkaas asaga oo sansaas u garanin in la garansiyo waaye runtiis waaye ama ndore waan ku raacsanahay in hadii qofkaas ay tahay xitaa qalabkan tarjumada inta adduunka dhan ay taalamaha meel Soomaaliya ay bilaabaysa waa meel dhigaa inta wax ka shato oo tarjumada kuugu imaan afka doonta taabsanaysa ma ogtahay haddaan fanka u soo noqono baydhabo hadda waxa lagu soo dhaweeyay fanaan nimcaan لا عليه شو أيونا كقطي هي صوت قاضي محائي معنيه ما يسوق جرا Oh,
heesahaasi uu macnaheedu heesta mayga uu sameeyay hal saac uu ku qabadsiiyay ninka la yiraahdo uu ku sameeyay abwaanka weyn ee koonfurta Soomaaliya abwaan Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash isla markaasna si la yaab leh ayaa macnaheedu loogu hambaliyay isla markaasna farxad weyn ka dhacday shanta qaaradood oo caalamka oo dhan macnaheedu maanta laga wada haaday marka haddaad abwaanada ama fanaaniinta sideed u aragtaan baydhabo fanaaniinta ku qulqulaysa iyo horumarada ay ku socoto hadda waxay kula muuqataa taas waxay ku tusaysaa baydhabo markeedii horeba magaceedu wuxuu ahaa baydhabo jannaay markeeda horeba baydhabo waa meel ka mida meelaha Soomaaliya ugu bilicdasan uguna hawada wanaagsan oo waa meesha baydhabo yani magaalada oo dhan guri kala tootagto anaba ka bilaabaysa and that's why ay dadku ugu qulqulayaan iyo dadka degan naftooda oo dhulka iska leh oo daris wanaag iyo nabad jacayl ku caanbaxay oo aad loogu yaqaano looguna qadariyo dad aad diinta ugu wanaagsan oo daris wanaagana yaqaano oo dadkana aad u soo dhaweeyo oo cidna dhibaateen dhibna aan ka fikirin waaye darteed ay u tahay sababta ugu qulqulayaan dadka waana wax horumar la arki karo in ummadani ay ku tallaabsan doonto haddaan u soo noqono dawladda koonfurta galbeed ee Soomaaliya haatan waxay u guuraysaa Baraawe magaalada oo ah xarunta koonfur galbeed ee Soomaaliya laakiin cagsigeeda waxaa jira gobolka Shabeellada Hoose dhibaatooyin inay ka jiraan in dad beerahooda wali la haysto guryahooda la haysto isla markaasna lagu dhibaataynayo deegaankooda dalkii dawlad baa ka jirta la yiri federaal koonfur galbeed Soomaaliya xuduudeedu waxa weeye siinka dheer Lower Shabeelle halka uu ku yaalo halka kala qaybisa gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya sideed u aragtaa gobolka Shabeellaha Hoose waxaan ognahay dawladda federaalka in ay diiday waxa jiray qorshe dawladda koonfur galbeed ay keentay ee ahaa degmo walba in loo qoro 300 oo askari oo iyadu ay istifaacdo si markaas kadib ay ammaankeeda u sugato ayna ula dagaali karto cid walba oo nabadda diidaysa sidaas darteed dawladdii federaalka hindisihii koonfur galbeed ay keentay waa ay diiday 8 degmo ee gobolka Shabeellaha Hoosena macnaheedu ma isdhigi kartaa dawladdii federaalka ayaa badiidanba in la xasiliyo gobolka Shabeellaha Hoose aadan waa mahadsan tahay su'aal meesha ku jirto waaye su'aashaas laakiin mid yaraan ku sheegay adiga markaagi hore waxa lagu qoonday Shabeellaha Hoose inay faraq ugu jiraan sidaada banaanko in lagu dhaho aadan increase oo dhashay bay bakool intaas ku egtaaday waana arki doontaa it will happen that maxaad ku talinaysaa sababta ii kaadaan ku dhameeyay waxaan rabaa inaan ku iraahdo marka la dhahayay Baraawe magaalo madaxa baydhabo wala dhihi karay awdiil wala dhihi karay madaytii morgaba meesha rabaa dhihi karay moogtay caasimad micnaheed sidii Soomaalidu fahmeen ma aha magaalo waaweyn oo daaro waaweyn oo baabuur is dhaxjeexayaan ma aha micnaheed caasimad waa meel lagu ilaashado nidaam soconaya laakiin magaalada kana haduu ganacsi kaaga socday waa goonida micnaheed kullayba ugu dambeyntii arrintaana u jeedid arrin oo yani korka imaatay waaye oo hoos u socoto arrin kullay dadka ku cusub ma u maleynaayo therefore mar hore yani qof ay qaatay mar hore arrintan aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa abwaankeena weyn aqoon-yahanka qoraaga Soomaaliyeed fanaan abwaan Cali Atoore oo isagu ma arkaysa marti ku ah stuudiyaha koonfurta galbeed ee Soomaaliya qaaradda Yurub qaasatan wadanka Switzerland abwaanku waxa uu ka soo kicitimay boqortooyada dalka Ingiriiska UK isla markaasna hawl shaqo ayuu u yimaaday magaalada Zurich ee ma arkaysa xarunta ganacsiga wadanka Switzerland waxaadna inagala socoteen warbaahinta koonfurta Soomaaliya barnaamijkii loogu magac daray higsiga 2016 iyo koonfurta Soomaaliya sidaas darteed kaamirada waxa inoo hayay madaxa guud ee warbaahinta koonfurta Soomaaliya Dr. Cabdullaahi Ibraahim Xasan Amaandhoorey isla markaasna uu gacan siinayay macnaheedu wariyaha qaaska ah ama wariyaha caanka ah ee loo yaqaan Faad Maxamed Abuukar Abu Asharow sidoo kale doodan ma arkaysay ama wada hadalkan waxa uu dhexmarayay anigoo ah Ustaad Aadam oo macnaheedu wareysanayay abwaanka abwaan aad baad u mahadsan tahay adab
kusoo dhawow waddanka Switzerland marka ما سنة